mudane Shinzo Abe madaxweynaha Japan, mudane Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Itoobiya, mudane Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay, mudane Muuse Faqi gudoomiyaha midowga Afrika, madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan mudane James Wani Iga, mudane Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Djibouti, mudane Osman Salih wasiirka arrimaha dibadda Eritrea, martida sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin. sharaf weyn ayay ii tahay inaan hadal jeedin ka sameeyo shirweynaha toddobaad ee golaha iskaashiga caalamiga ah ee horumarinta Afrika tigaa 7 oo ay martigelinayso magaaladan quruxda badan ee Yokohama, Japan. waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare mudane Shinzo Abe iyo dowladda Japan martigelinta shirweynahan tigaa 7. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dadka reer Japan soo dhaweynta diiran ee ay u fidiyeen aniga iyo wafdigayga. Thank the people of Japan for the warm hospitality extended to me and my delegation. gobolka geeska Afrika run ahaantii waa goob juqraafi ahaan leh astaamo u gaara marka la eego dadkeeda iyo taariikhdeeda. geeska Afrika wuxuu kaloo goob istiraatiijiyad muhiim ah u yahay ganacsiga caalamka, kheyraadka dabiiciga ah, amniga iyo isku xirnaanshiyaha xilligan lagu jiro, iyo xiriirka wax wada qabsi ee ka dhaxeeya dalalka caalamka. balse waqti aad u dheer gobolka geeska Afrika waxaa dib u dhigay nabadgelyo xumo, is-aaminaad la'aan iyo maqnaashiyaha aragti lagu midaysan yahay oo laga yeesho nabadda iyo horumarka. ugu dambeyn iminka ayaynu ku soo toosnay baahida loo qabo in taariikhdan la bedelo oo aan u wada guntanno mustaqbal ifaya oo wadajir noo wada anfaca, kaas oo ku dhisan is-ixtiraam, is-aaminaad iyo horumarin ku salaysan iskaashi dhammaan dhinacyada waxtarka leh ee lagu gaarsiinayo barwaaqo iyo nabad dhammaan dadka gobolka. iyada oo qayb ka ah aragtideeda xilliga fog, waxaan ku cadeeyay ololahayga doorashada madaxtinimo in Soomaaliya mar labaad ay tahay inay ku soo laabato kaalintii ay ku lahayd geeska Afrika oo ay hormuud ka noqoto dadaalada dib u heshiisiinta. tani waxay weligeedba ahayd welina ay ahmiyad u tahay sidii xasilooni iyo horumar ay u heli lahaayeen Soomaaliya oo kaliya maahe dhammaan guud ahaan wadamada gobolka. midaasina waxay ku xiran tahay iskaashi wax ku ool ah oo ay yeeshaan dalalka gobolka si loo wada gaaro barwaaqo dhammaan la wada mahadiyo. waxaan ku faraxsanahay in labada dowladood ee aan walaalaha nahay ee Eritrea iyo Itoobiya ay dib u soo nooleeyeen xiriirkii laba geesoodka ahaa ee ka dhaxeeyay. dadaalkaas waxaa udubdhig u ahaa booqashooyinkii heer sare ee dhex maray Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya, kaas oo wada hadallo dheer kadib horseeday isfaham. ugu dambeyntiina is-afgarad wada saxiixdeen dhammaan saddexda wadan oo muujiyay sida ay uga go'an tahay inaan yagleelno iskaashi isdhexgal dhaqaale, mid siyaasadeed iyo xiriir dhow oo dadjooga gobolka yeeshaan. The Horn of Africa region offers enormous opportunity for economic development and growth if we can further strengthen the political, social and economic ties between the concerned countries and our global partners. gobolka geeska Afrika wuxuu leeyahay fursado badan oo dhanka horumarka iyo kobcinta dhaqaalaha ah. haddii aan sii xoojin karno xiriirka siyaasadeed, midka bulsho iyo dhaqaale ee ka dhaxeeya wadamada gobolka iyo saaxiibadeena caalamka, Soomaaliya waxay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer adduunka, waxayna awoodaa inay fududeyso ganacsiga gobolka geeska Afrika iyo adduunkaba. Ethiopia waxay leedahay bulsho dabaqad dhexe ah, welina sii kordhaysa iyo shacab taageeri kara hamiga dalalka geeska Afrika ee isdhexgalka dhaqaale iyo maalgashi, iyo sidoo kale ganacsiga iyo maalgashiga dalalka shisheeye ay ku samaysan karaan dalalka geeska Afrika. halka Djibouti iyo Eritrea ay yihiin albaabka geeska Afrika, annagoo wada jirna wadamadeenu waxay awoodaan oo ay daruuri tahay inay ka faa'iideystaan fursadaha ee hor yaalla. waa inaan sare u qaadnaa iskaashigeena cusub ee ku yimid dadaalka dheeriga ah. run ahaantii dowladaha geeska Afrika kaligood kuma ahan inay ka wada shaqeeyaan sidii mustaqbal wanaagsan loogu heli lahaa dalalkeena iyo dadkeena, maxaa yeelay waxaan haysanaa dalal badan oo saaxiibo nala ah, kuwaas oo naga taageera dhinac walba, haddii ay ahaan lahayd nabadda iyo amniga adduunka iyo dadaalada kale ee horumarinta.
waana mid aan mahadnaq uga hayno. Waxaan u mahadcelinayaa dowladda Japan, si gaar ah Ra'iisul Wasaare Shinzo Abe, oo nala wadaagay aragtidiisa wanaagsan ee ku aadan dhiirigelinta iyo taageerada Japan ee nabadda iyo xasiloonida qaaradda Afrika. Taageeradani waxay dhab ahaantii kaabi doontaa dadaalada kale ee horey uga jiray geeska Afrika si looga wada faa'iideysto fursadaha guud iyada oo si wada jir ah loo wajahayo caqabadaha wali ka jira gobolka. Mabaadi'da iyo aragtida ugu muhiimsan ee gobolka geeska Afrika waxay la mid yihiin kuwa shirkan tigaad uu horseedka u yahay ee ku saleysan iskaashi, hal-abuurnimo iyo dadaalada wax wada qabsiga ee gobolka. Waxaan ku kalsoonahay in shirkan gaarka ah ee ku saabsan nabadda iyo xasiloonida geeska Afrika iyo gobolada la deriska ah ee aynu ku yeelanayno shirweynahan tigaad 7 maanta ay fursad inoo siinayso dhammaanteen si aynu isku dhaafsanno aragtideena ku saabsan xaaladda gobolka, si aynu iskula fahanno caqabadaha caamka ah kadibna inaan ka wada shaqeyno hiritaanka xal siyaasadeed si aynu u dardargelinno dadaalada nabadda. And for all of us reiterate the political will and commitment to further accelerate peace effort. Thank you.